وكما عبد الله قودح بري الشباب كيرادان أنا كل جرو والشباب مانتي ومال وين ومال أمة الصومالية أي برتين هو حلوان كشجناي إيه ابن الدراسة مقالنا كشجنا وما سنتي wasiirka waxbarashada Soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waa shakhsi leh wajiyo fara badan dadkuna ay ku wareeraan hadba halka uu jiro balaan dib ugu laabano qayb ka mid ah taariikhda wasiir Goodax Barre waxa uu wasiir ka soo noqday xukuumadda Ra'iisul Wasaare Cabdiweli markii ay soo ifbaxay khilaafkii u dhaxeeyay madaxweyne Xasan iyo Ra'iisul Wasaare Cabdiweli Goodax Barre waxa uu noqday wasiirkii ugu horeeyay ee ka shaqeeyay in xukuumaddu uu ka tirsan yahay meesha ka baxdo si berri uu uga mid noqdo xukuumadda cusub ee la soo dhisi doono waxaana uu si indhala'aan ula saftay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud way jirtaa walaal in aan muxuu ahaa warqad gaarsiinay annagoo oo muxuu ahaa 10 wasiir ah warqad aan isleenahay waa naseexo oo aan prime ministerka oo na liidgaraynayay gol ahaan aan muxuu ahaa kula talinayno in maadaama hadda siyaasaddii ay dhinacaas u leexatay in uu noqdo kii mataqaanaa fududeeyo oo mataqaanaa xilkan maadaama hadda aan ugu sii shaqayn karin oo sida hadda wax yihiin ay adkaatay in muxuu ahaa xal laga gaaro intii kala qaybsanaashada iyo buuqa iyo baarlamaanka iyo adduunyada yacni nidaamka ay nagu arkayso uu sii socon lahaa in uu noqdo qofkii xilkaska ahaa asugu fududeeyo inuu noqdo warqaddu asalkeedu intaas waxaan rajaynaynaa in muxuu ahaa prime ministerku uu si dhaba oo arrintaas wasiirada 12 aan ugu soo jeedinayno uu mataqaanaa u qaado markii uu iska waayay liiska wasiirada cusub ee xukuumadda Ra'iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid waxa uu bilaabay mucaarado isagoo ugu dambeynna ka shaqeeyay in mooshin laga keeno madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sheekada hadda loo joogo waxa weeye madaxweyne shaqadiisu gudan waayay kaalintiisa ka soo bixi waayay taariikhdu ay qoraysa waxa uu yahay la haysto la leeyahay war shaqadeeda gudan weysay dadkii shalay shaqada u dhiibtay ay rabaan inay shaqada ka qaadaan arrintaas way arrinta taalo shacabka Soomaaliyeedna waxa laga rabaa inay arrintaas culays ka saaraan fahamkeeda xildhibaanadoodana ay daba istaagaan doorashadii 8 Febraayo kadib Goodax Barre waxa uu bilaabay inuu si indhala'aan u taageero dawladda madaxweyne Farmaajo waxaana uu ka mid ahaa shakhsiyaadkii soo dhaweeyay in la dhiibo qalbi dhagax sidoo kale waxa uu lug weyn ku lahaa rididii gudoomiye Jawaari annaga wadamada dariska inaan nabad kula noolaano oo ay kaalin ka galaan qayb ka qaataan meesha aan naallo inaan ka kacno ayaan uga baahanaa mustaqbalka meeshaas ayuu jiraa waxay u baahan yihiin oo ayna weydiiyaan jiro oo dekada ah waa kan mar kale Goodax Barre oo ku andacoonayay inaan mooshin laga keeni karin madaxweyne Farmaajo xildhibaanada mooshinka ka keenana ay u shaqeeyaan dawladda shisheeye dambe waxa laga yaabaa ummadda Soomaaliyeed inay u haystaan in madaxweynahoodii uu dhib la yimid marka madaxweynahoodii in la raacday ay tahay waxa laga yaabaa dad Soomaalidu waa dad runtii aad wax garad u ah waxa laga yaabaa laakiin qaarkood inay u maleeyaan in arrintu saata mooshinkan waa mooshin siyaasadaysa oo 3 hadaf leh laba hadaf waa waxa aad uga muuqdo faragelin shisheeye oo dantoodu tahay waddankan inuu dhibaato uusan ka bixin hal hadafna siyaasiyiinta la timid arrintan ayay quud u tahay hadaba su'aasha ayaa ah shalay Goodax Barre markii uu mooshinka ka keenay madaxweyne Xasan iyo gudoomiye Jawaari madalal shisheeye ayuu u shaqeynayay mase waxa uu haystaa in shacabku yihiin doohanayaal aan waxba ka ogeyn waxa socda haddiise ay dhacdo in uu waayo kursiga wasiirnimo ee uu hadda ku fadhiyo ma waxa uu bilaabi doonaa dacaayad